qaybtii saddexaad sheekadii la magac baxday qisadii katiinka. haddii aadan soo daawan labadii qaybood oo hore, fadlan isku day inaad soo daawatid si aad ula socotid sheekadan xiisaha badan. su'aalihii inoo rahmanaa waxay ahaayeen: Shamaa xaggee ku dambaysay? raggii qaraasinada ahaana xaggeebay keeneen? Shamaa waxaa la geeyey suuqii addoomaha lagu iibin jiray. waxaa goobtii lagu iibinayay soo galay qaadigii maxkamadda magaalada. haddii uu qaadigu wax indha-indheeyey, waxa uu arkay gabadhan oo hagoog jiq ku ah oo uu ag taagan yahay ninkii soo qafaashay, waxaana ay ku gorgortameen lacagteeda. inta aysan qiimaha lagu iibinayo qaadigu uusan weydiin, ayaa qaadigu gabadhii waraystay oo ku yidhi: ma addoon baad ahayd inta aan halkan lagu keenin? waxay ugu jawaabtay: maya, ee waxaa layga soo qafaashay badda xeebteeda, waxaana ay soo qafaashay dadka ka ganacsada addoommada iyo dhicidda doonyaha badda. waxa uu gabadhii weydiiyey: cilmiga maxaad ka taqaan? sida culuumtii Griigii hore. waxa ayna ugu jawaabtay: in fiican waan ka aqaan. oo gabadhu waxay ahayd gabadh aad cilmiga u baratay, waana uu ku qancay qaadigu oo waa iibsaday, asaga oo raba gabadha uu wax caruura ka leeyahay inay cilmiga u barto, maadaama beriga Roomaanka muslimiintu ka hormarsanaayeen xagga culuumta dhakhtarnimada, falsafada iyo ilbaxnimadaba. qaadigii ayaa la hadlay ninkii iibinayay Shamaa oo ku yidhi: imise ayaad iga siinaysaa gabadhan? ninkii ayaa ku jawaabay: waa addoonkayga Shamaa, sayidkaygiiyow. qaadigii ayaa yidhi: oo ma addoon bay ahayd markii hore? ninkii ayaa ugu jawaabay: maya, u malayn mayo. wax ceeba ma leedahay? ayuu yidhi qaadigii. ninkii ayaa ugu jawaabay: waxa ay leedahay hal ceeb oo keliya. qaadigii: oo maxay tahay? ninkii ayaa yidhi: qiimaha aan ku rabaa aad u sarreeya bes. qaadigii ayaa ku jawaabay: hagaag, waan gadanayaa. sidii ayaana qaadigii kula wareegay Shamaa, asaga oo geeyey gurigiisa. dhanka kale, Sarxaan waxa uu dhabarkiisa ku qaaday gabadhii addoonka looga dhigay, asaga oo u kaxeeyey beertii cinabka. waxa ay ku tiri iyada oo cinabkii soo goosanaysa oo ku tuuraysa dambiil uu gacanta ku hayay, ayay tiri: waxay dadka dhulkeenu dhahaan gabadha markii uu xambaarsan yahay nin iyada oo cinabka guranaysa waa wakhtiga ugu macaan ee ay ku jirto. suu ugu jawaab celiyey: naaheedhe, anigu waxaan ahay addoon, ma ihi xor. haddii aan xor noqdo, macaankaad sheegaysid soo isbedeli maayo. waxay ugu jawaabtay: macaanka waxaa dareema gabadha midhaha guranaysa damiin yahow, ma dareemaan kuwa xorta ah iyo addoommadu. hal mar ayaa uu dhabarkiisii ka dajiyey oo dhulka ku tuuray. say ku tiri: Sarxaanow, waabaad idhibsanaysaaye. raggu markay qaadaan gabadh dhallinyaro ah waa ay ku farxaan, adiguna celiiri ayaa dareemaysaa. wuxuu ugu jawaabay: aniga qalbigayga waxaa ku dhacay dhagax weyn, waana uu indhala yahay. Shamaa waa la soo kaxeeyey. waxaaba ay soo gashay guri aad loo diyaarshay, aadna u qurux badan. rooggiisu uu ka samaysan yahay casaan ama guduud. aad bay ugu faraxday, balse qaadigii ayay eegtay iyada oo leh: waxaad ilowdeen inaan ahay addoon, halkaana waxaa u qalma inuu ku noolaado qof xor ah. inta uu qoslay buu ku yidhi: goortan suuqa soo aaday ma aanan doonayn addoon. say tiri: laakiin waxaad bixisay lacag aad u fara badan. suu ugu jawaabay: ogow, dadka xorta ah ayaa ugu wanaagsan in dib xorriyadoodii loogu soo celiyo. say ku tiri: maxaad lacagta u bixisay? suu yidhi: si aan u barto diimaha iyo ilbaxnimooyinka kala duwan, si aan u saxo khaladaadka ay galaan kuwa sheeganaya in ay xor yihiin oo dadka kale oo xorriyadda haysta ka qaadaya xornimadooda. inta uu geesaha eegay ayuu ku yidhi: magacaygu waa Andariya, waxaan ka shaqeeyaa maxkamadda oo qaadi ayaan ahay ama garsoore. say ugu jawaabtay: nasiibkayga wanaagsan ayaa igu kiin soo beegay inaan gacmihiinna ku soo dhaco. inta uu qoslay ayuu ku yidhi: waa curis qurux badan inaad dhahdo in aan ku soo dhaco gacmihiinna. waxaaba laga yaabaa in aad nala simayso kuwa dadka qafaasho oo xornimada ka qaada. say tiri: xaashaa lillaah, sayidkaygiiyow. waxa uu ugu jawaabay: waxaan doonayay in aan wiilkayga Miikaa'il u diro dhulka Shaam si uu u helo culuumta carabta iyo islaamka, balse naftiisii ayaa u degdegtay dhimashada. say ku tiri: ma ku su'aali karaa sida uu dhintay inaad ii sheegtid? waxa uu ugu jawaabay: waxa uu ku dhintay dagaal lagula jiray muslimiinta meel u dhow Antakiya. waxaan ku waaniyey inuusan dagaalkaas hogaamin, balse xamaasadiisii ayaa qaaday oo u kaxaysay meel aad u dheer. inta uu murugooday buu uga baxay meeshii ay ku jireen Shamaa iyo gabadhiisii. isla biriqsigii gabadhii uu dhalayna waa ay ka daba baxday, balse Shamaa ayada oo yaaban ayay guriga ku dhex warwareegtaa, ma ay taqaan waxa ay samayso. dhanka kale, Sarxaan waa uu fadhiyaa asaga oo xeero dhooba ka samaysan cunto ku cunaya.
waxaana uu ku dhex jiraa xeradii xoolaha. Xerada banaankeeda waxaa kuraas u taala ninkii soo iibsaday iyo gabadhiisa oo waxa ay uga sheekaynaysaa waxa uu ku sameeyay maantay. Gabadhii ayaa soo baxday oo soo aaday dhinacii Sarxaan. Odaygii ayaa ka soo dababooday oo gabadhii madaxa ugu tilmaamay in ay ka baxdo goobta. Isla markiiba odaygu waxa uu dusha uga xiray xeradii oo qataaray waana uu ka baxay. dhanka kale safarkii Sarxaan ku hungoobay baadi goobkiisa oo saddexdii nin hogaaminayaan ayaa dib ugu soo laabtay meeshii ay deganaayeen ee dhulkii Najdi. waxaana ka hor yimid Sarxaan adeerkiis oo saddexdii nin Risqi, Faayiq iyo Qaanim weydiiyay halka uu jiro Sarxaan. waxa u jawaabay la taliyihii Qaanim oo yiri hoogeenne haddii farduhuna tuuri lahaayeen oo ayna aasi lahayd ciidda saxaaruhu. adeerkiis ayaa ku jawaabay ma waxaa dhacday dhacdo weyn. qaadigii Najdi ee Faayiq ayaa hadlay oo yiri amiirkeennii Sarxaan waanu weynay. waxaa qabsaday qaraasinada iyo kuwa ka ganacsada addoomaha waxa ayna ka qabsadeen xeebta badda Qalsam. waxaa hadalkii qaatay taliyihii ciidanka reer Ilaal ee Risqi oo yiri waxaanu sugnay muddo badan aadna u dheer mana aanan arag ilaa wax yar mooye oo uu ku qoray jiridgeed asaga oo ku sheegaya in la qafaashay. waana uu dhameeyay Risqi iyo hadalkii. adeerkii ayaa ku jawaabay sidee ay ku dhacday dhacdadaasi asagoo oo gariiray. waxa uu yiri xageebay jireen fardafuuladii Najdi iyo geesiyaasheedii iyo boqoradeedii. wax jawaab ah uma aysan celin. dhanka kale odaygii Sarxaan gatay waxa uu soo galay gabadhiisii oo qolkeedii ku jirta asaga oo aad ugu qayriyay. waxa uu ku yiri waan iibinayaa adoonkan aan ku khasaaro qiimihii la iga soo siiyay barkiis. odaygu waxa uu ka xanaaqay wixii ka dhex dhacay Sarxaan iyo gabadhiisa. gabadhiiba ugu jawaabtay ma waxaad rabtaa inaad ii soo gadid adoon kale oo sida daabadayda oo kale igu dhaqdhaqaaqaya. odaygii baa aad u qayliyay oo yiri si aan uga takhaluso adoon gabadhaydii ula dhaqmay sida jaariyada oo kale oo ka dhigtay adoon uu leeyahay oo kale. ninkii Sarxaan ahaa maxaa uu maagan yahay. waxa uu ku wareegayaa jaranjaradii oo qolka xoolaha lagu xareeyo jaranjaro kore ayaa uu leeyahay. waa uu fakarayaa daaqadii uu qolku lahaa ayuu eegayaa marna ilinka ayuu iska fiirinayaa. waxa uu maagan yahay malaha baxsad. marakan jaranjaradii ayuu ka soo degtay. agtiisana waxaa ka qaylinaya digaaggii iyo arigii. albaabkii ayuu ka soo baxay. geesaha ayuu aad u eegay isagoo hadba dhinac u jeedsanaya. ugu dambeynna waa uu cararay. iyana waxaa albaabkii furtay gabadhii Sarxaan adoonka looga dhigay magaceeduna ahaa Haana. si degdeg ah ayaa ay uga soo oroday albaabkii xerada. waxa ay ku dhawaaqday magaca Sarxaan Sarxaan Sarxaan. daaqadii ayay fiirisay. markii dambena waxay tiri iyada oo kor u qaylinaysa aabe aabe aabe. waa uu soo orday aabaheed isagoo leh maxaa dhacay. say ku tiri aabe Sarxaan ma meel baad u dirtay. suu yiri maya. say tiri haddaba waa uu cararay. suu ku qayliyey horaan kuugu sheegay adoonkan waxaan ku yidhi aan iibinno adna waad iga diiday. saad igu tiri waa fiican yahay iska daa aaway fiicnaantii. dhanka kale waxaa sheekaysanaya Shamaa iyo qaadigii ayaa yiri waxaan kuu soo iibsaday kuuna xoreeyay inaad leedahay cilmi. say ku tiri ragga adoomada iibiya si lacagta loogu badiyo waxa ay ka dhigaan qofka ay iibsanayaan mid wax walba garanaya si ay ugu siyaadsadaan lacagta ay ku iibsanayaan. aniguna waxaan aqaan cilmi iska yar oo ah kuwa la baro ciyaalka boqorada iyo amiirada. durba waxaa soo booday gabadhii uu qaadigu dhalay oo ku tiri ma waxaa ku dhalay boqor. say Shamaa ugu jawaabtay haa. qaadigii oo hadalkaa dhibsanaya ayaa yiri gabadhayda bar wixii aad taqaanid. ilbaxnimooyinkii hore qayb ka mid ah way masaxantay kuwii kalena waa ay dhammaadeen. inta yarta ah oo hartayna waxaa ka horeeya si aad u baratid khataro iyo baqdino badan. ama idinka oo carab ah in badan ayaad nooga horeysaan caafimaadka, xisaabta, chemistryga, daawooyinka iyo samayntooda iyo physics-ka dhismaha iyo qaababka. say ugu jawaabtay iyadoo aad u murugaysan oo aanba wajigooda eegayn. waxay ugu jawaabtay waan fulinayaa amaradiina. gabadhii yarta ahayd ee qaadigu dhalay ayaa u soo dhawaatay Shamaa kursiga ka soo horjeedana fadhiisatay. gabadhaas waxa ay ahayd mid aad u qurux badan. su'aal bay ka hor keentay iyada oo leh ma waxaad ahayd mid jecel dhulkaaga. say tiri haa waan jeclaa. gabadhii qaadigu dhalay waxay weydiisay su'aal kale oo ka baxsanaa mawduuca. waxay ku tiri ma jirtaa gabar aad jeceshahay. say ku tiri haa. markaasay weydiisay mar kale ma waxay ahayd gabar aad u qurux badan. markaasay tiri haa. markaasay haddana weydiisay magaceed. markaasay Shamaa ugu jawaabtay waxaa la oran jiray Sarxaana. markaasay tiri waxaa khasaba inay gabadhaasi ahayd mid aad u qurux badan. say tiri sabab. gabadhii qaadigu dhalay ayaa ugu jawaabtay markii aad magaceeda sheegtay in badan ayaa khiyaalkaaga iyo fakarkaagu iyada ku fakarayay. su'aashaydana ma aadan u degdegin ka jawaabideeda. Shamaa waxa ay ku jawaabtay iga raalli ahow boqoradaydii
oo inta ay ka kacaaday aaday dhinac ay sariir taallay. Gabadhii baa ka soo daba kacday oo tiri, Sarxaana ma waxay ahayd mid aad u qurux badan? Say tiri, haa, way qurux badnayd. Qof walba arkana waxa uu oran jiray waa ay qurux badan tahay. Gabadhii ayaa ku jawaabtay, muhiim ma aha hadalka dadku ee ra'yigaagu adiga ka waran, si kula ahayd Sarxaana. Way dhaqaaqday oo tiri, anigu markii aan rabay inaan arko waa la isoo qafaashay oo ma arag. Say tiri, waxaan dareemayaa in aadan jeclaan. Say tiri, waan jeclaaday. Dhanka kale Sarxaan sidii uu ordayay waa uu daalay, waa laga daba yimid oo fardaa lagu ceyrsaday. Ugu dambeynna waa la qabtay, hareerahana looga yimid, waxaa la keenay xeradiisii. Ninkii soo gatayna wuxuu ugu goodiyay hadalladan, baxsadka adoon yahow waa khalad aan la cafin karin. Waan ku iibinayaa aanba kugu iibsaday 4 meelood meel intii aan kugu soo iibsaday. Adoonka baxsada qiimaha lagu iibsado hoos u dhac ayaa ku yimaada. Waxaan ahaa mid ku wanaagsan adiga, sidaas darteed waad madax adagtay, waadna khiyaantay, ee xamil natiijada khiyaanadaada. Markuu hadalka dhamaystay ayuu inta kacay gabadhiisii Haana aaday ku yiri, u keen in badan oo ah rooti iyo saliid iyo malab. Maxaa yeelay adoonku markii uu wax badan cuno waxa u soo noqota caafimaadkiisa, wajigiisuna waa u dhalaalaa, qiimaha lagu iibsanayana waa u bataa. Kadibna odaygii markii afkiisa inta Sarxaan uu ka maqlay ayuu ka baxay xeradii qolka ahayd. Marakan qabiilkii reer Hilaal waxa ay qorsheynayaan inay u baxaan geedkii laga afduubtay Sarxaan. Risqi baa yiri, waxaan tagaynaa meeshii uu Sarxaan ku qoray dardaarankiisii, annaga oo ku sugayna qaraasinadii. Waxa aan ka ogaan doonaa ayna inoo hogaamin doonaan meeshii ay Sarxaan geeyeen. Qaanim oo ka shalaytamaya ayaa yiri, waxa ay ahayd inaan xaggaas joogno, haba nagu qaadato aniga iyo Risqi cimrigeena oo dhan. Ugu dambeynna adeerkii Sarxaan ayaa ku yiri, ku baxa barakada Ilaahay oo qaata wixii aad ka haysan kartaan, rag fardafuul ah oo aad adag. hana soo laabanina ilaa uu idinla yimaado. Sarxaan, amiirkii Sarxaan ahaa. Dhanka kale Sarxaan oo qolkiisa isaga jira ayaa waxa uu soo gashay gabadhii adoonka looga dhigay ee Hana. Waxayba ku leedahay iyada oo gacanteeda ku haysa cudurdiisa, maxaad iiga carartay oo iiga tagtay? haddii aad ii sheegi lahayd baxsadka waan kula carari lahaa. Wahiba jeclaatay talo. Inta uu yaabay ayaa uu si daran u soo eegay buu ku yiri, waad ila cararaysaa, markii lagu qabtana maxaa kugu dhici lahaa? Say tiri, waxba ima heleen, aniga xorriyadeyda ayaan leeyahay. Uma uusan jawaabin. Markaas waxay ku tiri mar kale, cun oo cun si uu u kordho miisaankaagu, qiimaha lagu iibsanayaana u kordho. Si dhibsasho ku jirto ayaa uu soo eegay, waxaana uu ugu jawaabay, ma doonayo jeebihii la igu xiray igu celi. Say tiri, maya ma igula ballamaysaa in aadan cararayn? Soo yiri, suurtagal maaha in qof bini aadam ah uu xorriyadiisa ballan ku galo. Dhanka kale Shamaa iyadu way isla hadlaysaa iyada oo leh, gabadhan yari waa ay jeclaatay, haddii aan baxsado way murugoon doontaa, ee xaqiiqada waxba ha ka qarin ee waajah oo wax walba u cadee, raadina Sarxaan meel walba uu joogo. Dhinaca Sarxaan, odaygii waxa uu weydiiyey gabadhiisii, Sarxaan si fiican wax ma u cunay? Say tiri, maya, oo nimanku hadday jeebuhu ku xiran yihiin wax ma cunaan, saas darteed baan ka baxshay jeebihiisu wax u cuno. Suye, haddii uu cararana? Say tiri, ballan ayuu iga qaaday. Odayga ayaa qayliyay oo yiri, adoomada ballan lagu kalsoonaado ma leh. Gabadhii baa tiri, marakan waxaan ogaaday runtiisa. Suu yiri, haddii uu mar kale cararana? Say tiri, aniga ijeebe oo igu bedel, igana iibi suuqyada adoomada. Sarxaan waa uu isla hadlayaa isagoo isla hadalladan, dhammaan dhaawacyada iyo wixii aan awoodo oo maal ah ma isku furan karaa? Ilaa katiinkii Shamaa uu la soo baxay isaga oo ku haya katiinkii Shamaa. Katiin yahow, baro sabarka, jooji ciriiriga. Markii aad dareentid inaad ku jirtid gacan aan aniga ahayn iyo qoor aan ahayn qoortii Shamaa. Sarxaan waxa uu rabaa inuu xorriyadiisii ku iibsado katiinka. Ninkii soo gatay waa uu u soo dhaqaaqay isaga oo leh, haddii aan kaa iibsado xorriyadeyda boqolaab intii aad igu soo iibsatay way xoreynaysaa. Ninkii inta yaabay oo istaagay ayuu yidhi, ma waxaad bixinaysaa boqolaab qiimaha aan kugu soo gatay si aad u soo ceshatid xorriyadaada? Sarxaan wuxuu yidhi, haa, laakiin waxba kala iibsan mayno ilaa markhaati aan helno. U yeer gabadhaada, mana ku rumaysanayo ilaa aad gabadha aad dhashay ay goobjoog ka ahaato. waan aqbalay ayuu yiri, waana uu yeeray. Waxa uu ku yiri Sarxaan waxa uu rabaa in uu isxoreeyo si mar aad markhaati uga ahaatid. Gabadha inta Sarxaan ag istaagtay aadna ugu dhawaatay bay tiri, ma ku adag tahay inaad isxoreysid Sarxaanow? Suu yiri, haa. wuxuu u soo baxshay kiishkii uu katiinka ku jiray, waxaana uu yiri, waa kan qiimihii aan isku xoreyn lahaa. Katiinku waxa uu ahaa katiin cagaaran
odaygii baa soo kacay oo la soo booday katiinkii aadna ugu farxay. Inta uu hadlay ayuu yidhi, halkee ayaad Sarxaanow ka soo xaday katiinkan? Sarxaan baa ugu jawaabay, ma soo xadin. Ninkii been ayaad sheegaysaa, Sarxaan ma soo xadin. Say tiri gabadhii xagee ka keentay katiinkan aysan gabdhaha boqorradu ku riyoon helidiisa? Suu yidhi Sarxaan, soo kuma oran waxaan ahaa amiir boqorna dhalay. Sarxaan asaga oo hadalkiisii wata ayaa uu gabadhii ku soo wareegay oo odaygii hor istaagay isaga oo leh, katiinkaana waxa uu surnaa qoorta jacaylkayga inta aysan qaraasinadu i qabsan. Ninkii inta gadaal u sikaday ayuu yidhi, qisada boqorrada aad ka hadlaysid mar dambe agtayda ha ku sheegin, haddii kale waxa ku gaaraya xanaaqayga. Sarxaan aad buu uga naxay asaga oo leh katiinka iyo xorriyaddana. Ninkii ayaa ku jawaabay, isku day inaad ilowdid, maxaa yeelay addoonka iyo waxa uu haystaba waxaa iska leh sayidkiisa. Adna sidoo kale addoon yahow, adiga iyo waxaaguba waxaa tihiin milkiyadayda. Dib ayaa uu uga booday waana uu tagay odaygii. Gabadhii ayaa Sarxaan isku dhejisay, isaguna garbaduub ayaa uu isaga tuuray, waxaana uu dhaqaaqay xeradii. Dhanka kale Shamaa waxa ay u soo gashay qaadigii iyo gabadhiisa. Waxa ay la hadashay gabadhii iyada oo leh, alla maxaa kaa qurux badan Lutsiyaanoy. Lutsiyaano waa gabadhii qaadigu dhalay. Gabadhii ayaa tiri, alla weligay ma maqal qof igula hadlaya hadalkan oo kale. Shamaan ayaa ugu jawaab celisay, quruxdan luuqadayda waxaa lagu yidhaahdaa Sahralbaan. Shamaa oo ahayd qof hagoog jiq ku ah ayaa tiri, ma doonaysaa inaad ogaato xaqiiqadayda? Gabadhii oo soo eegaysa ayay hal mar hagoogtii iska qaaday, waxaana ay aragtay quruxdii Shamaa. gabadhii waa ay naxday, waxa ay ku tiri maxaa tahay? say tiri waxaan ahay Shamaa. Dhinaca kale Sarxaan waxa uu gubay xiradii uu ku noolaa iyo wixii ku jirayba. haddii aan u soo laabto Shamaa iyo halkii ay joogtay, odaygii qaadiga ahaa iyo gabadhii waxa ay waraysi ugu dhaqaaqeen Shamaa. waxay gabadhii Lutsiyaano weydiisay Shamaa hagoogta sababta ay jiq ugu ahayd. Shamaa waxa ay tiri waxaan doonayay inaan iska qariyo qaraasin xaqiiqadayda iyo qaabkaygaba, laakiin intaa kadib ma sii wadi karo intaa ka badan inaan isqariyo, mana raba inaan khayaamo dad igu kalsoonaaday igana caawiyay mixnadan aan ku suganahay. qaadigii baa hadloo yidhi, waan ka xumahay gabadhaydii, aad iyo aad, maxaa yeelay iminka waxaan go'aansaday inaan ku iibiyo. isqarintii kadib Lutsiyaano way naxday, waxayna tiri Shamaa sii wad sheeka qisadaada. hadalkiibay qaadatay oo tiri, katiinkii goortaan helay ee aan naawilay waan ku dheeraaday jacaylkiisa. xabadaha uu ka koobnaa katiinkaasu waa 33 xabo, waana cadad haddii uu 3 jibaarmo noqonaya 99 magac ee Ilaahay oo ah asmaa'da Alle oo aan la nusqaamin karin, siyaadana u baahnayn. sidaas darteed katiinka waxaan ku hayay laabtayda, waxaad moodaysay in uu yahay xabiibkayga, waxaanan dareemayay masiirkaygu inuu ku xiran yahay katiinkaas. katiinkana waan haysan jiray ilaa amiirkii Sarxaan uu ii soo galay anoo hurda, waana uu iga qaatay si uu ugu qabowsado qalbiga. alla hoogaygee haddii uu ka tegi lahaa katiinka. habeenkaas kadib maalintiisii Sarxaan waxaa maxkamadda ka soo dacweeyay odaygii uu addoonka u ahaa, kuna eedeeyay inuu katiin soo xaday xerana gubay. maxkamaddana waxaa qaadi ka ahaa Shamaa, qaadigii ay gurigeeda joogtay. odayguna qisada katiinka waa uu hayaa iyo magaca Sarxaan ee talow maxaa meesha ka dhici doona. Sarxaan iyo odayga kee guushu raaci doontaa? Shamaa markii ay maqasho maanta wixii ka dhacay maxkamadda iyo sheegitaanka Sarxaan, sidee ayay noqon doontaa? maxaase ka dambeeya? waa su'aalo inoo rahman. la soco qaybta 4. muuqaalkan waxaa idiin soo diyaariyay idiinna soo jeedinayay anigoo ah Cabdullaahi Cabdikariin Khaliif. dhinaca Facebook haddaadna nagala socotid, share iyo like inoogu qabo. dhinaca YouTube kana subscribe iyo like dhiirigelinta. aad baad u mahadsan.